إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنتي وعن كسود هذا برنامج كيني قصص القرآن للأطفال. قصة إنما أنت وحكساب سنتهي بقرة بني إسرائيل. هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. waagii nabi muuse calayhi salaam ayaa waxaa la sheegay inuu jiray nin oday ah oo ka mid ah reer bani israa'iil. ninkaa wuxuu ahaa nin ilaahay hanti badan siiyey oo qani ah. ninkaa wuxuu u wado dhanka lahaa hal gabar. waxaa kaloo jiray wiil uu ninka adeer u yahay oo faqiira waxba haysanin. wiilkii shaydaan ayaa wuxuu u waswaasiyey maad adeerkaa dishid oo markaad dishidna aad hantidiisa dhan dhaxashid, asagana aad u saarisid diladiisa, dad kale aad ku eedeysid oo markaas diyadii adeerkaana aad heshid oo hantidiisii iyo diyadiisii aad isku darsatid. shaydaanka ayaa intaa u sheegay. wiilkii warkii shaydaanka ayuu dhageystay, wuxuuna go-aan ku gaaray inuu adeerkiis dilo. magaaladii odayga iyo wiilka ay deganaayeen waxaa yimid niman ganacsato ah oo ka mid reer bani israa'iil oo aan laakiin magaaladaas deganin oo magaalo kale ka yimid. wiilkii wuxuu is yiri jaaniskan maanta ka faa'iideyso oo intaad adeerkaa dishid nimankan ganacsatada ah ku eedeey ayuu is yiri. wuxuu u tagay adeerkiis xilli habeena, wuxuuna ku yiri adeer, waxaa yimid magaalada niman ganacsato ah, waxayna wadaan badeeco, kaala i raac, waxaan rabaa inaan badeecada kasoo iibsado, lacagtiina ma wada haysto, igala hadal intaan haysto inay iga qaataan, inta kalena inay iga sugaan ayuu ku yiri. maadaama adigana hantila aad tahay ayna ku yaqaanaan in haddaad i raacdo inay iga yeelaan baan rajaynaya ayuu yiri. odaygii ayaa ka yeelay, way is soo raaceen. markii ay meeshii ganacsatada ay deganaayeen ay u dhow yihiin oo xilli mugdina ay tahay, qof ibni aadan oo arkayana aysan jirin, ayaa wiilkii adeerkiis u dilay. kadibna waa uu kasoo tegay oo meeshiisii iyo xaafadiisii ayuu kusoo noqday. waagii markuu baryay ayaa wiilkii wuxuu iska dhigay qof adeerkiis raadinaya. guriga adeerkiis ayuu tegay, markaas ayuu weydiiyey. waxaa la yidhi adeerkaa xalay ma soo laabanin. kadib wiilkii wuxuu soo aaday meeshii uu adeerkiis ku dilay. markuu meeshii yimid ayuu wuxuu ku arkay nimankii ganacsatada ahaa oo meydkii adeerkiis kor taagan. markaas ayuu bilaabay inuu sooysiiyo, uu qayliyo, uu nimankii ku eedeeyo inay adeerkiis dileen. nimankii ayaa la yaabay, waxayna yidhaahdeen waxaan aad sheegaysa waa maxay? annagu meydkan ayaan aragnay, mana aanan dilin, shaqana kuma lihin ayay yidhaahdeen. wiilkii waa uu buuqay, waa uu qayliyey ilaa ay meeshii dhan mushkiladii isqaqabsi u ka yimid. kadib waxay iskula soo dacwoodeen nabi muuse calayhi salaam. nabi muuse markii u yimaadeen ayaa wiilkii nimanka asagoo ku eedeynaya oo dhahaya adeerkii ayay dileen, waxaana ka rabaa diyada adeerkii, nimankaana ay leeyihiin annagu ma aanan dilin, shaqana kuma lihin, in aan diyo bixinana hadda annaga culeys naguma aha, laakiin niman ganacsato ah oo sumcad leh oo sharaf leh oo la yaqaan ayaan nahay. haddii magaalada dhexdeeda nala ka aamino inaan ninkan dilnay, sharaf dareen nagu noqonaysaa. qof hadhuuna aaminaya ama wax naga iibsanayo ma jiri doono. marka nabi muusow, annaga arrintaan bariyaan ka nahay ee ilaahay noo bari in qofkii khaladkan sameeyey oo ninkan dilay in ilaahay soo bandhigo oo soo kashifo, ilaahay noo weydii ayay ku yidhaahdeen. markii uu nabi muuse ilaahay baryay ayaa ilaahay u soo waxyooday, wuxuuna ku yidhi qoomkaaga waxaad ku tidhaahdaa ilaahay wuxuu idin farayaa inaad sac gowracdaan. markii uu sheegay nabi muuse ayay yidhaahdeen, nabi muusew waxaan ku weydiinay in naloo sheego qofkii ninkan dilay, adigana waxaadna leedahay ilaahay wuxuu idin farayaa sac gowraca, oo maxaa iska galay? annaga miyaad nagu jeesjeesaysaa? nabi muuse wuxuu ku yidhi, ilaahay ayaan ka magangalayaa inaan ka mid noqdo dadka jaahiliinta oo nebiyada ilaahay iyo dadka wanaagsan dhaqankooda ka mid ma ahan inay dadka u jeesjeesaan. reer bani israa'iil
waxay ahayd dad aad u dhib badan oo nebiyadooda su'aalo badan weydiiya, xujeeya, oo mar kastaba dhanka dhibka ah raadiya. markii la yidhi sac gowraca waxaa ku filneed inay sacun gowracaan, laakiin waxay bilaabeen inay su'aalo adag weydiiyaan nebi muuse oo ay ku dhahaan ilaahay noo weydii sacna laka rabo waa noocee, waa kalarkee, marba ay su'aal weydiiyaan. markii ay su'aasha badiyeen ayaa ilaahay ku imtixaamay in loo tilmaamo astaamo iyo tilmaamo aad u adag. markii ay raadiyeen sac astaamahaasi ama tilmaamahaasi leh ayay aad ugu adkaatay inay helaan. muddo kadib waxay heleen hal sac oo astaamahaasi leh. magaaladii ay degganaayeen iyo aagaarkeedoo dhanba halkaas sac ayaa astaamihii laga helay. saca waxaa iska lahaa wiil agoona. wiilkaasi qiso cajiib badan ayuu isagana lahaa oo aan mar kale ka sheekayn doono hadduu ilaahay yidhaahdo. wiilkii markay u tageen ayay weydiiyeen saci oo ay dhaheen naga iibi sacan oo sac kale ayaan kuugu beddelaynaa. wiilkii waa uu ka diiday, wuxuuna yidhi ma idinka iibinayo ilaa aad isiisaan sacan miisaankiisa oo dahaba ama makhaarkiisa oo dahab laga buuxiyey. markii uu wiilkiisaa yidhi ayay ku qasbanaadeen inay kaga iibsadaan maadaama aysan xal kalena haynin. ayagana markii hore arrinta isku adkeeyeen way soo iibsadeen, kadibna saci way gowraceen. markii ay gowraceen ayaa nabi muuse wuxuu ku yidhi waxaad samaysaan gabal ka mida sacaani ku dhufta meydkii. markii gabalkii lagu dhufta meydkii ayaa ilaahay soo nooleeyey oo waxaa la weydiiyey yaa ku dilay. wuxuu yidhi waxaa i dilay wiilkaan aan adeerka u ahay. kadibna dib ayuu u dhintay ninkii. wiilkii ayaa qirtay oo wuxuu yidhi aniga ayaa dilay adeerkii, waxaana u dilay in aan hantidiisa dhaxlo, diyadiisana aan helo. markii ay saa dhacday ayaa wiilkii asagana la dilay iyadoo looga qisaasayo adeerkiis uu dilay. arrintan waxay ahayd mucjiso aad u weyn oo ay reer bani israa'iil arkeen. inkastoo ay reer bani israa'iil arkeen mucjisadan iyo mucjisaad kaloo fara badan oo ku filan in quluubtoodu ay jilcanaato, laakiin badankood waxay ahaayeen kuwo quluubtoodu ay aad u adag tahay oo sidii dhagax oo kale ah ama ka daranba. halka ay qisadiina noogu dhammaatay waxaana ka faa'iidaysanaynaa in ilaahay subxaana watacaala wax ka qarsoon aysan jirin. qofkii wax sameeya khaldan iskuna day dadkii inuu ka qariyo in ilaahay aysan ka qarsooneen, markuu ilaahay doonana uu soo bandhigi karo ama uu kashifi karo adduunka dhexdiisa iyo aakhiraba. waad mahadsantihiin. la socdo sheekooyinka soo socda. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون